dhowrkii toddobaad ee aynu ka soo gudubnay waxa ka sii daraysay xaaladda abaaraha ee ka taagan gobolada bariga Somaliland. haddaba si aan ugu kuurgalno xaaladda abaaraha ee deegaanada waqooyiga iyo koonfurta gobolka Togdheer waxaan socdaal shaqo ku tagay deegaanadaasi waxaana la kulmay dadka ku dhaqan deegaanada Gabagabo, Forestry, Ceeldheere, Afweyne iyo Balliga Bulaala Baarjeex. bulshadan wax ka weydiiyay xaaladda abaaraha ayaa u badnaa xoolo dhaqatada deegaanadaasi kuwaas oo quus ka taagnaa adduunyadii ay lahaayeen walaac weynna ka muujiyay nolosha bulshada deegaanadaasi. inkasta oo bulshada abaaruhu caydheeyeen ay halis ku jirto noloshoodu haddana waxaa lama huraan inaynu xusuusnaano aayadda 12 ee suuratu Sumar oo Ilaahay ku yidhi laa taqnadu min raxmatillaah haka quusanina raxmadda Ilaahay. Xuseen Cismaan oo waayeelka tuulada Afweyne oo shakhsiyaadka ugu daada weyn deegaanadaasi araggana naafaka ayaa tilmaamay abaartan inay tahay tii ugu xumayd ee muddo ku dhow qarni soo marta deegaanadaasi. Cabdillaahi Axmed Dhuxul Abgaal iyo Maxamed Cabdiraxmaan Yaasiin oo u dhaqdhaqaaqa horumarinta deegaanadaasi ayaa baaq u diray ganacsatada, xukuumadda iyo shacabka Somaliland in gurmad degdeg loo fidiyo bulshada degmada Gabagabo iyo deegaanada hoos yimaada. Xuseen Cismaan adoolayba wuxuu meedaa adoolayna tan oo kale maahay. maxay kaga duwan tahay abaarihii hore aad arki jirtay maadaama nin weyn oo daatay? waxay kaga duwan tahay laba goo oo aan raxmadada in baanu hayna abaara soo aragnay tan oo kale oo laba sanadood roobku maqan yahay soo ma aan lignay waxaanu leenahay oo ka baryayna shicibka iyo dawladaba wixii noo gurmanaya aanu leenahay noo soo gurmado oo naga soo gaara abaarana haystana waa dadkiini abaaruhu wax yeeleen barakacay gurmad degdeg halala soo gaaro baqti dadku. Cadar Xasan Warsamo la yiraahdo. xooliinta in lag baydin nool xoolo ma noola xooli weydinka arkaya way dhamaa oo macal gaadiidku uu naga baxay oo wallaahi wata urta saamiheed geedka taaltaala wallahi naga tahay meel wax nooga yimaadaan ma jirto risqi leh ma jirta inaad fariin u dirayso haday tahay dawladda xisbiyada ganacsatada damiyaano inaad ma meel baan garanaa waxa indha iyo dhaga bala baan halkaas ka tuubani in ay xooli naga dhamaadeen oo aanu caydnahay oo aan lagu ogeyn oo caawo alla wixii nalo aasagaajo tahay ayaanu xisbiyada iyo dawladda ka baryeena in la ogaado in loo soo farajado in loo gacan taago ayaanu ka sugan. Jaamac Ciise Ways intii adduunyada la joogay ama aanu ka sheeka qaadnay raggii aanu durida ugu nimitan oo kale kama sheekaynana ma aanu arag waxa weeye Ilaah baa keenay meeshaanu joognaana waa Gabagabo. waxaan nahay anagu dadkan abaarkeentaga ay abaartu ku dhacday ee xoolihii ka bixeen wixii la raray jidka ay ku wada baqbaqteen wixii la kaga tagay intay kici kar weydana waxaan u baahanahay in nala taakuleeyo oo nala siiyo waxaan maktuubano. waxaan ku aragnay dad baahan waxaan ku aragnay dhul siiga ka kacayso waxaan ku aragnay tacab fara badan maanta cid kasta way u baahan yihiin haddii Ilaahay roob siiyo oo ay xoolahoodu u hagaagaan inoomay baahdeen aanu halkan baaq uga diraynaa ummadda islaamka dawladda ganacsatada dadka waxaya muxsiniinta inay dadka soo caawiyaan inay jeebkooda furaan inaynaan baahanin waxaanu idin leenahay wixii haysan dadka la soo gaaro. waa degmada Gabagabo ugu soo aragnay xaalado adag waxaanu markaa baaq u diraynaa cid kastaba qurba joogta ka soo jeeda ganacsatada dawladda oo hay'adaha madaxa bannaan in degmadan la yimaado gurmad degdegana lala soo gaaro. degmadu mid kale way baaxad weyn tahay waxay xukuntaa dhul badan oo fara badan waana dhulka abaartu ay aad iyo aad ugu dhacday. halkan waxay ka mid tahay deegaanada hoos taga degmada Gabagabo oo dhulka xoolo daaqsinka ah waxaana saameysay abaarta baka. Ali Daahir Maxamed Boos TV Caalamiga Universal waqooyiga gobolka Togdheer.